kulanti waxaana wanaagsan daawadeen halkan waa garoonka jaamacadaha degmada hodan ee gobolka banaadir waxaad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulankan oo qayb ka ah tartanka iskuulada youth league wuxuu kulankan dhex mari doonaa iskuulka Abuu Xaniifa iyo iskuulka Yaasin Cismaan garoonka ay gudaha u soo galayaan ciyaartooyda labada dhinac ay dhanka line-up-kooda Abuu Xaniifa iskuulka Yaasin Cismaan iskuulka Yaasin Cismaan sanadkiisa ugu horeeyay ayuu ka qayb galayaa tartankan iskuulka Abuu Xaniifa lambarkooda 9 ayaa u taagan waay baaseen ugu dambeyntii Maxamed Axmed ayaa kubadda baasi gadaal ayaa loo celiyay walla soo tuuray markan golaya iskuulka Yaasin Cismaan ayaa kubadda heesta markan golaya ways waay qaldeen kubadda oo popoyo goolka waa uu kormariyay ciraanka lagu magacaabo Maxamed Axmed Omar محمد يا كوبا استمركن محمد أحمد دولان محمد استجا يا بيلو كوبا ديستو محمد أفكر جولك محمد يا محمد جول يا كوبا داسي قبصدي جول يا عيرتو دا اسكولك يا سير عثمان يا كبد بهذه الضرب الجرميد جول يا كوبا توري دون مركن وجول يا اسكولك أبو حنيفة وأوصل توري أوه golaya wees ayaa kubadda qabsaday ugu dambeyntii waa loo dhigay aadayu kubaddaas ugu dagaalamay golaya iskuulka Yaasin Cismaan bulisiyoonkii laadkii ka yimid dhigiisa golayaha iskuulka kubadda markan golaya iskuulka Abuu Xaniifa soo tuuri doono waa soo tuuray kubadda ugu dambeyntii meel fiican maysano ugu dambeyntii shabaqay gaarin ciyaartooyda iskuulka Abuu Xaniifa Maxamed Deeq ayaana shabaqa gaaray lambarka 9aad Maxamed Axmed Omar kubadu dhaawac ka sii gaaray gooliya baray ciyaarta noqotay iskuulka Yaasin Cismaan ugu dambeyntii shabaqoodu waa la gaaray Abuu Xaniifa ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay kubad masaafo dheer laga soo tuuray ayuu daba raaciyay Maxamed Axmed lambarka 9aad Maxamed Cabdi Wali golaya kubadda qabsaday golaya ciyaartooyda iskuulka Abuu Xaniifa ayaa ka saf gareeyay banaanka iyo kubaddaasi ciyaartooyda way soo ilaatay gooliya Abuu Xaniifa ayaa ku adkaadeen iskuulka Yaasin Cismaan ayaa la adkaaday timintii toosku waa nageenta nabad galiyo